saaxiibayaal ku soo dhawaada janalka Garmaal. Maanta barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka waxa aan ku eegi doonaa xagee buu ku dhacay gantaalkii ka fakaday Shiinaha ee aadka loo hadlayay. dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in gantaalkii fakaday uu ku soo dhacay badda India meel u dhow jasiiradda Maldives. warbaahinta afka dowladda Shiinaha ku hadasha ayaa sheegtay in gantaalkan dhulka ku soo wajahnaa uu burburkiisa uu ku dhacay jihada bari 72.47 digrii iyo waqooyi 2.65 digrii. xarumaha Mareykanka iyo Yurub ee lagu raadraaco dayax gacmeedka ayaa dabagal xoogan ku hayay gantaalkii Shiinaha ee hawada sare ka soo socday ee dhulka ku soo wajahnaa ee lagu magacaabayay Long March 5B. warbaahinta Shiinaha ayaa sheegay in gantaalkaasi uu axadii dhulka ku soo dhacay saacadda marka ay ahayd 10:24 daqiiqo. hay-adda maamusha hawada sare ee dalka Mareykanka bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay hubanti u baahan tahay in gantaalka Shiinaha ee Long March 5B in uu saameyn u geystay dhulka ama biyaha. gantaalkan dib u soo laabashadiisa inta aan la xaqiijin waxaa cabsi laga qabay in uu ku soo dhici karo aag ay dad badan ay ku nool yihiin. xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dowladda Shiinaha ku eedeeyay inay arintan ku timid dayacaad dhanka dowladda Shiinaha. hase yeeshee khubarada ku xeel dheer arrimaha hawada sare ayaa sheegay in fursadda gantaalkaasi uu ugu soo dhici karay goob dad badan ay joogaan ama goob deegaan ah inay aad u yareed, maadaama uu dhulka intiisa badan ay daboolayaan biyo, dhulka soo harayna ay yihiin dhul saxaro ah ama lama degaan ah oo aysan dad ku nooleen. gantaalkan weyn ee la yiraahdo Long March 5B oo ah sida gaari qaadi kara xamuulka waxaa bishii la soo dhaafay loo diray saldhigga cusub ee Shiinaha uu ka samaystay hawada sare. gantaalkan oo culayskiisa uu ahaa 18 tan ayaa ka mid noqonaya gantaalada ugu waaweyn oo muddo 10 sano ah hawada sare loo diro isla markaana la xakameyn waayay oo dib u soo noqda. Mareykanka ayaa horey u sheegay in gantaalkaasi halka uu marayo in ay la soconayaan balse qorshaha aanu ugu jirin inay soo ridaan. khubaradu waxa kale oo ay saadaalinayeen in gantaalkaasi uu guban karo inta hawada uu ku jiro, inkasta oo ay suuragal ay ka dhigayeen in qayb ka mid ah biraha ay dhulka ku soo daadan doonaan. dhacdo tan la mid ah oo sanadkii hore dhacday dhuumo loo maleynayo in ay yihiin qaybo ka mid ah gantaal hawada sare ku burburay ayaa ku soo dhacay dalka Ivory Coast ee qaaradda Afrika. Shiinaha waxa uu ka carooday arinta sheegaysa inay arintan ay ka dambeysay dayacaad ku aadan in uu xakameyn waayay gantaalkaasi hawada sare ay u dirtay. dowladda Shiinaha waxaa lagu eedeynayaa in ay taxadar la'aan weyn ay tahay in la ogaado in gantaal weyn uu dhulka ku soo noqdo isagoo aan la xakameynin, balse dowladda Shiinaha ayaa reer galbeedka ku eedeysay in ay dacaayad ka wadaan gantaalkaasi. waxaa la sheegayaa in waxyaabaha kale ee xaaladda sii adkeynaya ee dunida walwalka ku reebay waxa ay ahayd in Shiinaha uusan dunida inteeda kale uusan la wadaagin macluumaad ku filan oo la xiriira soo noqoshada gantaalkaasi.